degmada Baabili waa degmooyinkii hore ee deegaanka ka mid ah oo 250 degmada ugu horeeyay deegaanka ay ka mid ahayd. waxay xad la leedahay shan degmo oo dhanka deegaanka Soomaalida ah iyo 4 degmo oo dhanka deegaanka Oromiya ah. tusaale ahaan 5 degmo deegaanka Soomaalida jaarka la tahay Mayi Muluqo, Fiiq, Dhagax Madow, Baljanno, Gursum weeye degmooyinka xad kala leedahay. dhanka Oromiya waxay xad la leedahay degmada Baabili Oromiya, degmada Gursum Oromiya iyo degmada Meedhaga iyo degmada Fadis. sagaalka degmo ay xad la leedahay degmada Baabili. run ahaantii waa degmo qadiimi ah oo khayraad fara badan leh oo laba tog ayaa haddana dhaxmara. toga Daaqati iyo toga Erareed ayaa kala dhaxmara. waxay leedahay haddana meelo dalxiis ah tusaale ahaan toga Maroodiga dalxiiska geeska Afrika. Maroodiga loo yaqaano Black Elephant loo yaqaano waxaa joogi jiray waaga 315 hadda waxaa 270 ayaa lagu qiyaasay waxa Maroodiga aaga jooga. waxyaalaha kale dalxiiska leedahay dhagaxa Baabili oo kale iyadana waa dalxiiska hodanta ku tahay degmada Baabili. run ahaantii degmada Baabili haddaan ka warramo dhanka waxbarashada iyo dhanka kale degmadu si guud waxay leedahay 2 dugsi sare iyo 25 formal school iyo 35 AB school. weerta guud waa 62 school ayay leedahay intuba way shaqeeyaan. degmadu dhanka caafimaadka haddaan ka hadlayadana waxay leedahay 3 health center iyo 2 human health post oo iyadana 34 total good waa 37 xarumood ayay leedahay dhanka caafimaadka. waxay leedahay 2 ambulance oo midi aad u daashay run ahaantii ay leedahay. dhanka beeraha isaguna waxay leedahay wuxuu leeyahay degmadu 5 FTC iyo 6 D house iyo 1 nursery site ayay leedahay. dhanka xoolaha animal health post waa 20 xarumood iyo sayladaha waa 3. dhanka biyaha waxay leedahay ceelash dhaadheer 15 ceel dhaadheer ceel gacmeedyo 16 booyadana waa 1. si guud dhanka degmada xaaladda guud ee adan ka sii waramo waxa weeye degmadu waa xoolo dhaqato beeraley. dadku run ahaantii beeraha si fiican bay u fashaan walow ay muddooyinkan u dambeysay ay roob yaraan dhanka cimilada ay jirtay oo run ahaantii ay abaaro badan ay saameeyeen. degmadu si guud waxay ka kooban tahay 7 center iyo 95 qabal hoosaad bay ka kooban tahay degmadu. intuba xaaladda hadda ay ku sugan yihiin dhanka nabadgelyada waa xaalad aad u fiican weeye. waxaan daris la leenahay dhanka Oromiya xuduud la leenahay isku dhacyo mar oo way yimaadaan. si guud xaaladda guud ee nabadgelyadu waa aad u fiican tahay. xaaladda guud ee si abaaraha ay soo noqonaysa ahaantii waa xaalad aad u dhib badan. in bulshadana dhankii waxyaalaha abaaraha kaga bixi lahayd waxaa laga bixi karaa waa dhanka beeraha laga bixi karaa. kulley beeriha dala beeray waxaa ku dhalanaya waa cayaan oo sida diirto kale ayaa ku dhalanaysa. taana ina buufin iyo hawlahaas aan ka qabanna degmahan. haddana waxaan ku abaabulnaa dalag iyo daryeel maadaama lafdhabarka bulshada uu yahay xukuumadda qorshahan qaadatay. annaga degmahan waxaan la siiyay 15,000 hektar inaan wax soo saar ka soo saarno. 15,000 hektarna insha Allah hadii la yiraahdo waxbaan ka soo saaraynaa hadii la yiraahdo roobka dusan u sii socdo. bulshadu waxay noqonaysaa dad ka baxaysa saboolnimada oo dhanka nacfi xoogooda ay ka soo saarayaan ayay noqon doontaa. dhanka dhaqo dheefso iyadana waa barnaamijka ay xukuumaddu qaadatay weeye dhaqo dheefso. isagana waxaan leenahay gaaguro fara badan oo dhanka malabka ah